Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar culus oo dagaalyahanada Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Kuda ee gobolka Jubbada Hoose. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in goobta uu dagaalku ka dhacay la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan, kaasoo socday muddo ku dhow saacado, iyadoo dhawaaqa rasaasta la isweydaarsanayana laga maqlayay qaybo ka mid ah deegaanka Kulbiyo. Dadka deegaanka ayaa ku waramaya inay jirto khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo ka dhashay dagaalka, iyadoo mararka qaarna la maqlayay qaraxyo u badnaa bambada gacanta lagu tuuro. Kooxaha Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda dagaalka ayaa shaacisay in dagaalka ay ku dishay sarkaal ka tirsan ciidamada Kenya, mana jirto ilo madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada kooxda, iyadoo maamulka Jubbaland iyo Kenya toona aysan weli ka hadal dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay weerarka ay Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Kuda ee gobolka Jubbada Hoose.